السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأنا سلامين وولاشي نسم سبكوكين أم بيوتي قفك نقعصو بليز سبسكرايب ده جنبليل كميشا كاغسو مقدونو كودفو si aad u aragto cashar kastoo cusub aan soo geliyo salaamullaahi calaykum axbaabi waa idin salaamay maasha allah maanta walaashiina samsam cooking and beauty waxay idin soo gogashan quruxda badan maasha allah marka aan soo gogla sidan quruxda badan ay ku soo baxday oo cajabka aan laga sheekay karin maasha allah maadaama gabdhahayga iga codsadeen inaani soo geliyo maasha allah wax kasta oo maanta ii anfacayo oo sida aan wax u hagaagsan lahaayeen gurigooda ay u quruxsan lahaayeen marka insha allah video si fiican u dhameystir insha allah gadaalan aan ka hagaajin doonaa hadda waan soo hordhacay hadan gadaawasho wacan أحبابي وكنا محلها وكنا جودرجي محلها مفراشنو هذا كبعدين صو فراش دونا قاس أركيسين سيدا أنا يدكسون وحواي قا كلا أنت أنا أنصارين وإنه محلها جودرجي كهوسيا قا كلا أو لاستيك له سفراش كقرب بدن أو صبح ما شاء الله ده أنا ساسو igu xirnaa waxa waa ana bixirab waxa waa guriga markaad hagaajisanayso daahsaas inaad yeeshaa wanaagsan si oo guriga qurux oo kugu soo baxo oo cajab oo kugu noqdo maasha allah markii insha allah waan soo gogli doonaa hadoo alla idmo waxaan soo saari doonaa go'ad aan rabaa maanta cadaan igaga dhagneed maasha allah inaan ku goglo cadaan ku gogla hadoo alla idmo aniga sheyga cadaanka aad iyo aad aan u jecelahay wuxuu ka mid yahay kalarka igu koowaad aan jeclahay waa cadaan maasha allah marka waxaan suubi doonaa hadoo alla idmo waa go oo sad waaye marka laakiin wuxuu ka kooban yahay cadaan iyo madow marka insha allah waynu isku soo baxayaan cadaan iyo madowga maxaa la afar barkiina wuu wataa oo laba oo plain ay tahay plain cadaan iyo laba oo maxaa lahaa isheeg waxa leh aarad madow leh iyo maradii la gali lahaay dhufeeygi marka hadda waxaan suubinaa waan soo goglaa markaan soo goglo insha allah waan soo dhameystiro oo waxaan u dhignina insha allah aad arki doontaan hadoo alla idmo hadda gogladii aan wadaa marka waa kana hadda waan soo goglay markaan soo goglay markii koowaad horta saaran u goglay sida caadiga ah blankiisa sida uu yahay aan ugu goglay wax decoration kuma aan hagaajin laakiin maasha allah si qurux badan ku soo baxay labada barkin oo maxaa lahaa labada barkin oo cadaanka u dhaxeeyo waxa waaye barkin aan hagaajistay oo ku image gareystay maasha allah si oo ugu soo baxo maadaama daahana madow cadaan uu ka kooban yahay halkaana maasha allah fiyoora cad oo qurux badan aan saartay meesha catarada marka aad iyo aad ugu soo baxay dhinaca geeskana sariirta waxaan ka dhigtay madow roog yaro bush madow dhinaca oo maxaa lahaa isheegay lugahana waxaan ka dhigtay sariirta xageeda maxaa la mid cadaan xigeen maasha allah cadaan ku tirnaa waa cadaan marka maasha allah marka magaci aan ku soo qurxiyana sidaan quruxda badan oo cajabka aan laga sheekay karin ku soo baxday marka maasha allah qofka waxa waaye maalmaha ugu dugan tahay jirto marka waxa waa maanta maalinka iga dugan tahay waaye marka waxaan sadhaa maadaama gurigan saan aad u hagaajinayso asxaabtaada oo markasta kaaga fadhiyeen inaa wax kasta aad ugu faa'iideyso bal ugu faa'iideey sidaas darteed idinku faa'iideeyay maasha allah marka intaan inka badan insha allah waa idin soo wada hadoo alla idmo assalaamu calaykum waraxmatullah